السلام عليكم asxaabtay meel kastoo dunida ka joogtaan bal saaxiibayaal ku soo wada ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay Kamal Daariga habeenka waxaan eegi doonaa warbixinada ku aadan Champions League maxaa laga yiri Madrid habeenka maxaa laga yiri kooxda Arsenal maxaa laga leeyahay guud ahaan Champions League siisakan arrimaha Ballon d'Or-ku waxaan eegi doonaa arrimaha ku saabsan Cristiano Ronaldo waxaan ka idhahayay Manchester United dadka qaar oo aan la xirin Manchester ma hagaagayso waxaan eegi doonaa arrimihii ugu dambeeyay guud ahaan Kamal Daariga waxyaabaha weyn baan eegi doonaa oo ay ku jirto ganaaxa Manchester City صاحب يال سبسكرايب كنا صار كوجا نقول سؤال كورجو جري شيرتي ولاكت مسكتر كان صاحب في العيار وجعل بالبرنامج كانوا قارسينا ويسلام صوت مقار كبير يقدرون خويان سوق برنامج كحو قادنا كامل لاد بروتين لسان وحياه عاوني عافمات خوفك سيدا فيتامينز كيو مينرالكا سوق واحد لسان بروتين نوع ذكر دوان بل كل حره تليفون هذا شاشه دايك كان بوقنيه بل عاو iyo ciyaarihi baanun qac ka siin doona habeenko Champions League ba habeenku soo laabanaya runtii oo indhaha lagu hayaa wax weeyaan ciyaaraha ugu horeeya habeenka waxa qayb ka noqon doona runtii Arsenal way ciyaaraysaa Real way ciyaari doontaa Juventus way ciyaarayaan waana loo cimaamadaya inta hore dadkan way noo cimaamadaan waxa weeyaan Champions League goor hore ayaa lagu soo dhaweynaya horta markooda lagu soo jeesana marka dambe 12 habeen laga dhigaa diqiyirka lagu geeyna laakiin yani markii ciyaarta dhamaatay iska dawr rafanaysi 8 saac saxda lagu gaaraya marka Real way ciyaari doontaa habeenka 10 habeenimo Arsenal goor hore ciyaaraysaa Arsenal sideed habeenka oo ruud ma soo gali doontaa Arsenal waa loo cimaaday wayay Juventus gadaal ay jirtaa 10 habeenimo Real 10 habeenimo inay jirtaa runtii war waa madci waa Arsenal loo cimaamaday Arsenal ciyaartu madaxa ku dagsan todobaadkan moogtahay wax weeyaan waa badiyaan runtii in iska dagsadaan bay rabaan cidii marka wax weeyaan qofku markuu badiyo yogurso ku dhaca ama qofku kooxdu taa Arsenal kada yogurso hayo iyo maduuki cayneen xiisu u noqonaa macnaa marka waka kulay Madrid ayaa taariikhda tartankan ugu awood badan kulay ugu badno xitaa waa kooxda ugu dhibcaha badan Champions League taariikhda ka badan cid kasta sidaad arkaysaan Alonso markii ugu dambeysay uu Madrid u ciyaaray Champions League ayuu haystay caawna ama Champions League Madrid la qaaday caawna Champions League ayuu bilaabaya isagoo tababara kooxda ah ilaa hadda wala loo dilaayay ninkii aad buu kacsan yahay xataa Saudi waxa la sheegay Mbappe inuu ku waalan yahay guuleysiga tartanka dhagweynaha sanadkan wuxuu waa inaan ku toortaa iyo koob walbaba ciyaartoyga Madrid waxay ku leeyihiin sida Tujmeni oo kale war ninku Jamligo ayuu macnaa anagu waa iska dharagnay anagu waa intaan soo daldalanay meesha uu daldalanay waa geedka iyaga waa la yaqaan sanad day maqnaadaan ama laba sanad day maqnaadaan waa yimaadaan dafwa xilad Jamligo leeyahay Mbappe Jamligo waayo firi saddexdaas markay qaadeen Liverpool gashatay Bayern gashatay Chelsea gashatay waa yimaadeen City gashatay hadana waa yimaadeen Bisha gashatay markasta Madrid ha ka shaqeyn marka Champions League la joogo inkastoo saadash ugu badan leeyahay runtii Liverpool ayaa sanadkan iska leh Arsenal baa ku xigta Bisha Man City Barcelona runtii markasta Madrid way runtii waka dhinaca kale waxa weeyaan Arnold Caaw xalad tilmaamay isagana loo cimaamadi doono kadib loo ciyaar soo dhaafay Carvajal laga yani saramarinay oo Carvajal laga dorbiday xataa tabar wuxuu yiri Carvajal nin easy man waa spirit kooxda udub dhaxaad buu kooxdan u yahay ninka marka caaw isaga loo Arnold loo cumada leeyahay runtii marad laacibin soo aruursan dhibkaan leeyo keel qanacna caawa waaya marka caawa fiinki Arnold way runtii Jordi Bellingham qodiiso 4 ilaa 7 garoon waxaan lahaa waa jooga caawa waa soo kacay Tuliska lagu daray waa ka tababar ku soo laabtay asii Greenwood baa iska hor imaanay markii ugu dambeysay waxay iska hor imaadeen La Liga intuu sanadkan Faranska aadan Greenwood hadaba labadan markii ugu dambeysay ay is arkaan Ingiriisiyaga ah La Liga ku kulmeen Getafe 2024 maalinka maxaa ka dhacday inta labadu way isdagaaleen garoonka dhexdiisa markii lagu eedeeyay Bellingham inuu ninkan ku caayay war kufsaday uu yiri macna ila ninkan arin waqti dheer waxa jirta lagu haysto kiis kufsiya marka ninkii marka madax geliyay wuxuu war naga tagay midkaadan kufsadaha marka habeenku labadii Ingiriisiyaga iska hor imaanaya season fiican buu ku jiray isagoo ku disform buu haystaa ninka Marcelo ciyaara Greenwood 2 gool buu risigan haystaa 3 ciyaarood marka waka dhinaca kale wax weeyaan waxa ka hor imaanaya Real Madrid inamo Argentina oo Messi ka dambeeya Real Madrid iyo Messi la isma tooso iyo Real Barcelona Olympique Marcel difaaciidu oo Real Argentina wuxuu leeyahay mayu Mbappe yahay kan ugu fiican dunida intuu Messi Broniga ciyaaraya isaga ayaa kan ugu fiican bur Kamal Daariga maalintu Messi fariisto markaas sidii baa la yiraahdo Hembelo iyo Mbappe iyo Mbappe fiican markaas la yiraahdo tagaya runtii waka laakiin Jamie Carragher wuxuu qabaa Barcelona inay siiskan tahay kooxda ku guuleysan karta Champions League saadaashii ciyaaraan Barcelona baa iska leh waa sidii kala soo dhaafay kooxda aan la dhacay bandhigeeda laba la dhalan 3
afar shan lagu bedela maanta dadku waa ka yaabeen ya alla laakiin waa sanadka sanad baarsha khasaaro u ah haddana sanadka ugu fiican tahay qaadi karin jamligu wareer waa Barcelona sanadkaas oo kale inuu soo mari doono ya hadda sanadka ka faa'iideysan karin wareer waa 10 sanaad jamligu la'aan yihiin al sanad dhaweeda alla say u kacsanaayna wariga soo sheegayo wuxuu sanadka soo kooxda ugu qatarta badneed bay ahayd haddana kuma guulaysan jamligu ilaa hadda iyagaan aaminsan oo ay walaadii saaran tahay laakiin Barcelona waxa weeyaan banoon calaawogan ku aqaan aniga Janiska sanadku ku soo maray ka faa'iideysan karin ya sanad kale balaa iska soo kacayso ya nimanaad isaaqeynayo nimana kan baloweynayo nimana kan yeeweynayo ya waka calay xal balandoor kuna isbuuc waa ka harsan wata xal idin sheegayay xafladii markaan u socdeen lahaa balandoor isbuuc dambe isniin dambe la bixinaya mahadsanidin saaxiibayaal anaga ku guuleysanay abaalmarinta best youtuber waxaa jira dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo youtuber ah aad u fiican baa jira runtii insha Allah ina markooda in la guddoonsiyo waan jeclaan lahaa gabdho badan waxaa jira Soomaaliyeed oo youtuber ah in la dhiirigeliyo ay tahay runtii in la abaalmariyo ay tahay runtii aniga waxa weeyaan waxa weeyaan waxaan jeclahay bahasha inay mataqana soo wareegto noqod mid kasta mar walba la dhiirigeliyo marka waxa weeyaan waa anigoo guuleysanaya haddana waxaan sidoo kale u damqadaan is leeyahay runtii alla ilaahay kuwa kale badan way jiraan u qalma waana sababtan stage sanad kasta uu sheego abal markasta laysiin waxaan ku afaftaan raadaa aniga kali iska maleey kuwa kale fiican way jiraan hallo cimaamado marka inkastoo yaani runtii maanta waxaan noo bilaabanay haddana maadaama xalan ku guuleysanay balandoorkeeni 365 maalmood soo socota ayaa dan noo bilaabmayo sanad ah xilligeeda waa 365 maalmood sanadkii waxaa haddana noo bilaabanaya 3 muuqaal oo maalin kasta ah toddobaadkii iyo 22 video ah 9 video oo bishii ah 1095 video oo sanadkii ah insha Allah haduu Ilaahay nafta noo deysto ama Ilaahay caafimaad taama na siiyo waxa lagu dhaqaaqayo oo Ilaahay caafimaad u nasiino Ilaahay haduu caafimaad na siiyo cimri dheer na siiyo hadda waka insha Allah saas baan rajeynayaa runtii iyo waqti kale sidaan sanadii hore u soo sameyn jirnay runtii marka waka haddana waxa ku jira xiliyo aan safaro iyo meelaha ku jiro haddana saddexdaas muuqaal lama taabtaan weeyaan runtii si walba aan habeenkii haddaan diyaarad ku sii qoranay barnaamijka iyadoo haddana waxaan sport ay yihiin oo ay tahay inaad xaaladda update-ka la jaan qaado haddana wax weeyaan si walba u dhib badan tahay waan habeen jir runtii safar haddaan ahay ama safar gaari aan noqdo waqti jidka ku jiraysa ama safar diyaarada noqdo oo waqti ku jiraysid oo ama subax hadii kugu aado kale habeenkii aad si jibal fasho waa saddexdaas mugta waa macnaha yaani wixii ninka saaka hor u sheegtay suuxii maqribkii update ka duwan kii hore update ka duwan ka ugu dambeeya waa wax ka duwan wixii hore wixii saddex saas weeyaan runtii marka wax weeyaan marka balandoorkaas baan ku soo xasuustay waxaan midin lahaa bal anaguna caawa marka isbuuca dambana waa balandoorkii isniinta ayuu dhacaya xafladdu dhacaysa isniinta dambe marka waxay hadda isbuuc baa ka harsan saddexda afartan nin Cusmaan baa ugu cad Lamin Yamal waa nin kale oo ka soo horjeeda kadib intaan kale waan arki doonaa cid ku guuleysta directorka waxaan arkay biish oo dhahaya hadii wuxuu Cusmaan ogaado waxa uu ahaa ninka horyaalka Faransiiska ugu fiican iska soo dhaafay Jamligna ugu fiicnaa hadii magaciisu Messi oo ahaan la Ronaldo oo ahaan la maanta oo intaas uu soo qabsaday dood lama geliyeen buuri macnaha sidaas daraadid buuri waa in Cusmaan dambe baldoor ku guuleystaa hore isbuuc soo socda haddaysan noqon dadka codeynay wax kama yaqaanaan buuri macnaha PSG waa dagaalmaysa codeyd mar la soo xiray bal aragna sanadkii hore shaqo iska dhacayo meeshii la viniyay la rodriyay kulay dad badan baa ku tartamaya abaalmarintan runtii dad badan baa ku tartamaya waan arki doonaa kulay waa kulanka Liverpool iyo Atletico midna mal ciyaarayna waxa laga soo calaamadeynayaa in ninka la yiraahdo ninka Alvarez uu ka maqnaan doono ciyaartaas oo Man City soo ciyaari jiray Alexander Isak todobaadkan tababar uu ka balan qaadin uu ciyaarto kooxda u cimaamaday doonta taageerayaasha midna marka waa habeenkii Isak ay daawanayaan Liverpool xurmaanlood kulanka hoosta war naga soo galo lagama ciyaarsiin karo riski baan ka badbaadinayna laakiin kulanka arbacada wadan huwa wiiraan ciyaarsiinayo Arsenal Michael Arteta habeenka Odegaard still uu maqnaanaya ciyaaryahanno badan dhaawac ayuu qabaa ciyaarta caawin bayd min Havertz Jesus Saka kooxdan isbitaal wareerinaya taariikhda tartanka Champions League habeenka soo laaban ninka ugu goolasha badan waxa weeyaan waa Cristiano Ronaldo wuxuu dhaliyay 142 gool Messi ku xiga ogow Champions League mar walba Ronaldo ciyaari jiray ka soo bilow 2003 ilaa marka lagu yimaaday mooyaane 2022 iyo 2025 hadda sidee 2022 Champions League Ronaldo ma ciyaarin oo Europe lagu kulaatishana Champions League xataa Aasiya ma ciyaarayo Champions League Aasiya xataa odagu ma ciyaarayo marka waxa weeyaan waa sanado dhif ah odagu aanu ciyaarin tartanka Champions League loo yaqaan ama mid Aasiya noqdo ama mid Europe noqdo
dhinaca kale Cristiano Ronaldo hadduu gool dhalin wuu dhimana markaan idin dhijir saas waa markaan idin dhijir Ronaldinho igiisu ayaa ku shaqeeya gool markaan idin saas waa ya waa Messi marka qaar wuxuu muuqdaa inuu iska nafisan yahay haddana gool dhalin ama hadduusan gool dhalin nafis yar baa ku jira xogaa waalidaas kuma zaid kama asaga laakiin Ronaldo waa ka arkayaan ku yiri hadduunan gool dhalin waalanaya كور ما له حيد وهو عن قياس يا لاعب كور مدريد رير هولان يا وحول ما تخنا فان درفات انه همان قياس وحوري هدي ما انت مدريد لقى بدينايو واسو هلكيس جول كتورتو انت ساك بدن برمعنا انت سو كويس تقول هلكيس جول ka badan burmina marka ninkan way wasabtay in dhahay way adag tahay ninkan inaad iish dhahda mucaarado kan waa qasab kun gool waa gaara mashiin waa goolash aad loo jeceliyay intaad la jeceshin gool in ka badan u jeceliyay uu waalanaya marka Ronaldo minis gool marka ku dheeyaa ka sida kawa markaan ku leeyahay Ronaldo yaa wuu ku waalan yahay gool waa ka haddaan dhalin wuu dhameeyay markaan ku leeyahay waa ka fiiri habeenadu gafuurta ku kacsanayd ciyaarta markaan u xanaaqsanaa maxaa yeelay 10 gool ayuu dhaliyay 12 ciyaar la soo dhaafay laakiin ciyaarta al khuduud al qalud gool ma nu dhalin nijabka kuma wada fiiri marka waxay leedahay ninkaas waxay leedahay Maxamedow gool inaan ish dhahnaan rabnaa uusan gool kun gaarin aan rabnaa leedin waa sababta in dhahay hadda Ronaldo ayaa gool dhaliyaan ku xanaaq dad leedahay inaad waalad ugu talagsan ku leeyahay waa kan ma gool dhaafa marka saan ugu waaleeyahay gool hal habeen alu sir way gool 12 ciyaar soo dhaafay 10 gool dhaliy macna habeenkaas gool la waayay saasa loo xanaaqsay macna marka taa wata marka kunkan ka sabar kaas waa gaaray Man United ciyaartooyda haddaan galnan arrinkooda ciyaaryahanada Man United kalsoonida way ka laabteen balle Omeron iyo systemka uu ku ciyaarayo ya aad bay madkhana ugu kalsoon dhaceen kan tababarkii la raacdeynay ergana la soo qoray ciyaaryahanada Manchester iyo ciyaari way ka kalsoon bixin tababaraha la soo qoray dhac macallinkii waa la raacdeeyay haddana sidii la taagan yahay markii Man United ku bilaabatay 33 sano kadib meeshii ugu xumeyd way 4 dhibcood ay joogaan marka ciyaaryahanadii iyo macallinkii waa kala tageen baa leerontii xilli Emeron uu yahay macallinkii ugu xumaa taariikhda Manchester soo maray macallimiinta rasmiga kooxda loogu dhigo meel gaar ka aan ahayn Barisic gulaha waa kii ugu xumaa ever Manchester soo mar bal fiir meeshuu joogo ya dhinaca kale waxa weeyaan hadda waxay war ku sheegayaan madaxda Manchester in ninkan arintiis ay ka shirayaan go'aan ka soo saarayaan in kastoo la leeyahay runtii wali kalsooni bay siin doonaan haddana shir baa dhici doona Sergey Mujida toddobaadkan uu qari kari waayay frustrationkiisa goolasha Manchester laga dhalnay markuu korka ciyaarta ka daawanay wis qari waayay xataa fiir silba haya Mujida fiir markii loogu dar goolasho uu leeyahay lagu daray cabal yaas ugu bood Mujida wax weeyaan madaxdu waa ku kacsantahay waa arki doona kulay waxa dhaca hada saacad dambeeyay waa lagu maadsanay macalinka ma taqaanaan ninkan waa ninkii la oran jiray berigii laba kumeeyadii ayuu khatar ahaa ninkan waa tababari hore Charlton iyo West Ham ninkii la oran jiray weeyaan Karabashley ayaa saacad dambeeyay Man United looga maadsanay isna qayb ku biiray dadka Man United ku maadsanay uu qayb ka noqday kadib markii Man United ninkan Ten Hag ninkan hadda maamula Emeron 3 dhibcood uu kooxda siiyay kaliya tani markuu kooxda yimaaday oo guuliisi iyo guuldaradiis ay badan tahay ya ninkan oo marka 1992 ilaa 2006 soo maamulay marna soo ahaa Brighton ilaa iyo Brigham player uu soo ahaa Charlton uu soo maamulay intuu 19 iyo 2006 kadib West Ham 2008 ku biiray muddo aan tababar noqon waqti dheer ilaa mar mooyaane uu iska noqday technical director wax nooca la waqti zaxad lagu shantii oo wax waqti dheer tababar aan ahayn tan lagu isdeedii ayaa saacad dambeeyay isna ku maasanay kooxda Manchester United wuxuu u muuqday inuu Sergey Ratcliffe soo wacayo leeyahay war bash Karbashleeyow adaan tababar kaaga dhigaya kaali yaaqay kuwa kan uu leeyahay waxaad arkaysaa Sergey Ratcliffe macna lagu maadsanaya oo ninkan soo wacayo isdhahay war adaan tababar ka dhigaya xataa kaalay ya ka adaaba ii dhaamee ninkan leen ay gelin saaqas uu leeyahay runtii oo xataa uu diiday ninkan Manchester United yani iska dhaga tirial way runtii marka macnaha qof kasta dhiiqadaas ay gelin uu taagayay mid kale wataan inay raggan oo aan la xirin oo aan 3 sano xabsi lagu ogaan Manchester ma fiicnaanayso wataan shan idin dhahay waa Rooney waa Roy Keane waa Neville waa Scholes waa rag reer Manchester United aawiya balas Ferdinand ku dar hal Jamie Carragher kooxda kale u soo ciyaar Liverpool ku dar war nimankan kooxdan waxa si niida ka jibinaya oo pressure ku haya maalin kasta oo caynaya aflagaadeynaya wax ciyaartoygooda iyo ciyaartoygii hore gaar ahaan kuwoodii hore ama raggan la dhahaya walaalo please naga booti ama Allah ma ko dad u shaqeeyaan hadday qabtaan Manchester way caynayaan war moral jab iyaga ku ridaya pressure kooxda iga saaraya marka qaar waxaad leedahay hadallada ay dhahaan dartood baa ciyaartoyga lagu soo iibiyaa
hadallada ciyaar weerarka ku qaadan kooxdu bay markasta si u noqotaa war kooxda maskaxdeeda ka socotay macallinka maskaxdeeda ka socotay dadka hadii forjada ka daay lahayn xataa okay aan leed laakiin waxa kooxda niyad jibinay waa kuwa kan bal fiiri sacuud bay ya intoodaba lejanadan kooxda dhan Emeron way ka soo jeesteen waxay taageen waa xilligu bixi lahaa Emeron Scholes soo boodo wuxuu yiri wadfal dambi yiri in Man United iyagoo Donnarumma u jeedo ay qaadatay cunug yar oo la hebelow maxaa la yiraahday Lemens dambi laga galay Bononiga waa so Man United iyadoo ninkan heli karta ay ninkaas ka dooratay waa qalad buu waxay Man United sameeyeen ya soo soco waxay haddana asaga ibnika bad isku raaceen in tababaraha systemkiisa uu ku ciyaaro uu bedelo asagna wuxuu yiri maalin aniga systemkiga ma bedelay in la yiraahdo ka fudud waa inuu bedelay yiraahdeen Rio Ferdinand soo booday waragii la soo gatay xataa wax socda ma laha wuu runtii wuxuuna tilmaamay ninka la yiraahdo Sesko haddaanu helin rag fursado u abuura inaan waxba laga filin una ka soo socon wuxuu yiri waxaan la walsanayo Benjamin Sesko Ferdinand sida dhahaya wuxuu leeyahay ninkan wax Janis lama siin maalin ciyaartii Manchester Derby wax fursad u abuuray ma laha wuxuu yiri Manchester ninkan way ku fishilmaysaa waradan yani si Hoyland buu ka noqonayaa waxa uu matarayo illa loo helay niman Jakatoro ninkan kubad ka caawiyo siya Bruno toddobaadkan maanu shidnayn dhinaca kale wax weeyaan shan waxyaabood ay ninkan iyo Manchester ba ku eedeynayaan nimankan lejanada ah waxa ku jira tactics-kiisa oo ah 5-2-3 uu ku adkeysanay 3 difaac wuxuu yiri waxaan waynu bedelaan ninkan ay leeyihiin waxa lagu haystaa ninkan sidoo kale qaabka doorashada teamkiisa Bruno Fernandes gadaal ayuu u dajiyay halku ninkan weerarka uu afka hore uu joogi lahaay kubadaas u dhalay jir u dhalay ninkan gadaal buu yaani u dhigayo khadxo gadaal buu yaani u celiyay halka ninkan ay ahayd in weerarka u soo celiyo weerarka caawiyo gool la dhaliyo ya asaga yaani tactics keenay sidoo kale waxa lagu eedeynaa ciyaartooyda kooxda Man United in bila spirit ay yihiin oo inay dagaalamayn toddobaadkan waxa ku yeeray midaas wuxuu leeyahay wal like of fight يعني حتى دجال ما لهم بوله سبيرت نم يكون دجال ما له سيدي كرتي مدرب مانشستر عياري هلا جالنا من القادم ساس بولعة سيدو كله عيارتو اللي وصل دار كحدة بقى كمتو سين كمك عيان وح والبول لك هنا مك عيان قعدوا سيدو كلنا وحويان وح مجرو هرمرة لبي تمسنا لقى جوا مركي فرجوس كحدة كبحي إلا هذا كحدي نسيب دريدا سعطة كوين كمتر تميان في الركين سنوح ولا ما تقنا أنت أصل عايز سوق جديد ولي ما ينادوا كح إسك أفريج إسك عاد نورماله Manchester koox weyn uma muuqato koox iska adiga Burnley iyo Bournemouth ila uma muuqato marka tirsanaysa ciyaarahooda kula inta lacagna soo galiyaan bay war waxa asaas u aytamaya war dadka ama nimankan laga basrayn kara ama nimanka ama la xirxiri kara aduga la sameeyay kariya akhay nimankan falanqeeya waxa ya ma jirto af kuleel nimankan kooxdan waa jibiyeen wali waxaan Sacuud dumay journalist Talyaani oo dhahaya ya ilaah baa mahad iska leh Manchester United waxa uu leeyahay ma jirto kulaha koox dunidan luminaysa ciyaaryahanada xirfadyahay ugu khatarta badan oo iyaga aan ahayn 10kii iyo 12 san ugu dambeeyay waxay durmaynayd kooxda iska luminaysay ciyaartooy ugu fiican oo iyaga intay soo gataan si ilduuf ay ku dhiibayaan bal fiiriguri Hoyland hadda ay soo direen sidoo ka yeelay Talyaaniga Tomine sanadka soo dhaafay gudaataha la qaaday kooxda kubadda cagta Napoli waa kaas degay safekaas weyn ka sameeyo wuxuu yiri Manchester hadii bay jirto koox ciyaaryahanada dayacda waa kooxda ugu badan taariikhda ciyaartooyda dayacda ku leeyahay runtii waa ka dhinaca kale waxaan labiya maal waa ka gabartii cid ay dhax gashay confirm wa xiriirkan Soomaalidu way xaqiijiyay iyadoo way xaqiiqan cunugan ku waalnay tirni ku waalay waa ka walaalkii labiya maal maanta waa ya wuxuu yiri cunuga ii gacan qabo ya waa ka marka waa ka cid way dhax gashay gabadhii Argentina ahayd Spotify Camno waa la diyaariyay ugu dambeyntii Barcelona garoonkeeda u soo socota wali toadkan garoon yaani yar oo 6 kun ay ku ciyaareen waxaan kaloon arkay kubadda cagta Manchester City sanad ayaa laga joogaa walaal runtii markii lagu soo oogay dacwada in la ganaaxayo horyaalka laga qaadayo saan la yeelay kambalo la yeelay ilaa hadda sanad ayaa laga joogaa runtii markaas ilaa haddana wax soo socda ma jirto Pep Guardiola marka tiimkiisa wuxuu muuqdaan in ganaaxan ay ka badbaadi doonaan maadaama arkaysa hal inuu 2030 meeyo jawaan saxiixay hatta shirkadda Bumi Malo dishiis waqti dheer ay la galeen waxaas waxay muujinayaan inuu Manchester City loo celin doonin marka nimankan iska kacsadeen la mooyaan wax ma socdaan baa sanad baa laga joogaa maalintii yiraahdeen nimankan baan ganaaxayna Pep 6 Premier League ay ku guuleysay 9 sano kan uu joogay walo halka hadda iska soo wareerayso xaaladda Sterling waa kaas ugu dambeeyay wuxuu yiri Maresca ima ciyaaris 350 isbuuci qaata wuxuu yiri ima ciyaaris doorka gal waa kaas dhiig naf isku yeelaya tababar iyo ayaan hayaa walaal runtii Chelsea ciyaarana badan iska soo xabstaa maalidu waxa uu ninkii wuxuu ahaa xoog weynaa asigii maalidu Raheem kooxdu ma ciyaarayaan Dizazi wuxuu la mataqana rafaadka Chelsea al arko sawirkan uu soo bandhigay ciyaarana badan la soo xabsana ciyaarana marka kooxda laga saaro
qolkan isaga murgaan buri meeshan frustration anagu hayo kuri macna ya istarina kuwaas ugu jira ima ciyaari Spallery Vardy xal wuxuu safta kulankiisa ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Cremonese inkastoo nin ku dhumaatay 16 jirkan wuxuu rajeynayaa Cremonese inuu ka dhigo sidii Leicester oo kale uu shoog horyaalka ku qaado berigi Leicester ay joogeen horyaalka dhan way dafeen haddana Cremonese oo heerka hoose ka timaaday saddexaad way joogaan waa asxaabteena wadgali